urur cusub oo lagu magacaabo khayr iyo barako oo ka shaqayn doona arrimaha bulshada iyo caawimada dadka baahan ayaa laga dhawaaqay dalka Finland caasimadiisa Helsinki. ururkan oo ay hogaaminayaan dhalinyaro waxa loo sameeyay xaflad lagu soo bandhigayo bulshooyinka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Finland siday u taageeri lahayd ururkan samafalka ah. gudoomiye Xasan Cumar Hurre iyo madaxda ururka ayaa soo bandhigay ujeedooyinka iyo waxay ka shaqayn doonaan ururka mustaqbalka waxayna ka dhawaajiyeen asaasay ujeedada loo aasay khayr iyo barako ururka khayr iyo barako waxa weeye markii aanu intayada badan ee ururka ka qayb kamid yahay aanu tagnay wadankii aanu aragnay baahiyaha badan ee yaala wadankii iyo dadkeena dhibaataysan iyo siday u baahan yihiin walba waxaanu u sheegaynaa 3 euro ee sadaqada ah inuu booskiisa aakhiro ku iibsanayo iyo miisaankiisa xasanaadka muhiimna maaha inuu qofku magaaladiisa gaadho ama ay gaari weydo waa sadaqaduna qof kasto islaama wuxuu soo dhaweynayaa waxa laaliya wixii khayraad ah ee dadka lagu caawinayo oo kale odayaal iyo waxgarad uu hogaaminayo Sultaan Cabdiqaadir Qarxiye ayaa soo dhaweeyay ururka una muujiyay taageero iyo hiil iyo hooba ah horta annagu hadaan nahay dadweynaha ka soo qayb galay meesha waanu idinku hambalyeynaa waa idin kala qayb qaadanaynaa waa idinku taageeraynaa maxamed xaashi dhawac gaariya wuxuu yiri bidaadanku marka ay dhitaan ayay qofka u mahadnaqaan laakiin qofku marka uu nool yahay ayaa wanaagsan waxa uu qabtay in laga mahadnaqo marka runtii marka hore waanu mahadnaqaynaa waxaan ku ballan qaadaynaa runtii inaan la shaqeyno الله وحي أنك جيسن كرو إنك جيستو إذا لا شقيه سيدو كله لوبين إن إذن سمعيه عدو إلى هذا وحي عدو بعنته هنا عن كشقيه كورة أنا دي عدو فرح سنة هاي إن ميلو لبا أدوك أما أور والبا أما وحلو دقاق ميل بالغا بلابا مركز دليرتني إن ما أنت سوتكتي إن يوح مناكسن أي نص بندقان إن سمعيان أور أي كتب الرعيان ما يكون عاونيان مدودا ميل كست فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وحير حداد سميسو يا خير كذا اللي حداد واحد بدنا سميسنا هذا يوسف عثمان هون كيبل تي في هلسنكي فنلندا.